xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Gabiley Cabdiraxmaan Nuur Abokor iyo gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada xildhibaan Cibaade Maax Cilmi ayaa maanta si rasmi ah waxa ay u gubeen bushqada kala duwan oo waqtigoodii dhacay bushqadahaasi oo kala ahaa sharaab daawooyin baasto daqiiq iyo waliba noocyada cuntooyinka kala duwan waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dawladda hoose Cabdiraxmaan Nuur Abokor iyo gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada Cibaade Maax Cilmi oo sheegay in talaabo laga qaadi doono cid lagu arkayo wax ka ganacsanaya bushqada waqtigoodii dhacay maanta taariikhdu tahay 15 bishii 2019 dawladda hoose Gabiley sidii caadada u ahayd waxay maanta ku hawlan tahay sidii ay kor ugu qaadi lahayd dhammaan fayadhowrka iyo nadaafadda guud ee degmada Gabiley waxa maanta halkan ku gubeynaa alaab expire oo isugu jirta daawooyin sigaar sharaab daqiiq baasto iyo noocyo fara badan oo ay waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose ay ka soo ururisay degmada Gabiley intaan lagu imanin ee aan ganax kugu dhicin marka ugu horeysa digniinba lagu siinaya mar labaadka waa ganax waa meheradaha haysta alaabta expire-ka ee meel ka dhigi waayay dukaamada farmasiyada waxa loo gelayaa mid dukaan waliba alaabtiisa banaanka iska diyaariyo bakhaar walibana ha diyaariyo waxa loo wixii expire u hayo ninka expire-kaasi gaadhiban mikrofon saari doonaa waanu idinku ogeysiinaynaa dhammaan magaalada wixii hawl expire shaqadeeda haya waxa maanta halkan lagu gubayaa bisha tahay 15 bishii December dawooyinkii iyo sharaabkii iyo sigaarkii iyo raashinkii laga soo guray dukaamada magaalada marka walaal waxaan idin leeyahay waxa oo dhacay dadkeena xasiinina waxana qurux badan shaygu intaanu dhicin ina dadka uga faa'iideysan masaakiinta geesta kale xogayaha fulinta dawladda hoose Cabdiraxmaan Nuur Abokor oo shir jiraayad ku qabtay xafiiskiisa ayaa kaga hadlay hadallo warbaahintu si kala duwan u falanqaysay oo ku saabsanaa maayarka degmada Gabiley oo isagu dhawaar safar ku tagay dalka Jamhuuriyadda Djibouti xogayaha arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri gudoomiyaha degmadu wuxuu ku tagay dalka Djibouti socdaal hawl caafimaad daawadeed gudoomiyaha markii labaad ee uu tago magaalada Djibouti oo ka soo qaatay daawooyin hawlo caafimaad daawadeed ka bacdina loo qabtay muddo inuu muddada ku soo noqdo muddadii maayarka loogu talagalay inuu ku soo noqdo dalka Djibouti hawsha caafimaad daawadeed ayuu gudoomiyuhu ugu baxay dadka meelaha propagandada iyo geliyeen arrimaha aan jirin wax jira maaha website-dadan la gelinayo wararka beenta ee aan waxba ka jirin waxaan leeyahay iska ilaaliyada warkaas waa been hawl caafimaad buu tagay sidoo kale waxa uu ka hadlay xogayaha degmada Gabiley Cabdiraxmaan Nuur Abokor xogayaha maaliyadda xisbiga mucaaradka ee u cid Marwe Faadimo Siciid oo uu sheegay inaanay wax aqoon isku lahayn kadib markii dhawaan warbaahintu ay sheegtay in xogayaha degmada Gabiley uu si wanaagsan ugu soo dhaweeyay xildhibaano ka tirsan xisbiga u cid oo iyagu ka yimid magaalada Berbera ee gobolka Saaxil waxa uu yiri Faadimo Siciid isma naqaano wiligeena isma naqaan wiligeena ma wada hadlo taa waxa tusaale u ah Faadimo Siciid markay sheegaysay magacayga garoonay nin qof magaciisa garawaayo hoos looga sheegay lahaa Cabdiraxmaan baa la yiraahdaa ya de qofkaas qof wax warsiin ma warkaas inuu ahaa war ay leedahay ayuu iska samaysatay inuu yahay indhoolaha garanayay indhoolayaasha garanayay waa Jaafar Awil Riiraash Kalsan TV Gabiley